Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Baarbe. Waxaan halkan idinku soo bandhigayaa buurtaasoo ay rag ka yimaadeen Kazakhstan iyo Turkmenistan dalkooda uu yahay. Meeshaasaa buurtan Ilaahay lagu baryaa in Ilaahay buurtan biyo uga soo saaro maadaama ay muddo badan oomanaayeen. Marka Soomaalidana waxaa loo baahan yahay inay sidaas oo kale Ilaahay u baryaan si Ilaahay roob iyo u siiyo iyo ilaha meelaha biyaha ka xarma in Ilaahay biyaha u soo saaro. Marka ila fiirsada oo ila daawada. Raggan waxay akhrinayaan qul wallah, aayatul kursi, yaasiin iyo duco tiro badan. Marka Ilaahayna uu ajiiba sidaas darteeda si Ilaahay adigana ducadaada u ijiibo. Haddii aad xanuunsan tahay, haddii adiga ilmo la-aan tahay, haddii adiga oo dhibaato ku haysato oo qalbigaaga iyo walwal kugu hayo waxyaalaha adiga aad tabanaysa ama u baahan tahay, gacmaha kor u taag si Ilaahay uu wax kuu siiyo adigana aad maxaa sheegeen wixii u baahan tahay Ilaahay aa uga heshid. Sidaas darteeda Ilaahay baridiisa marnaba lagama dheeraada, lamanaga fogaada, mana la yareysto. Waxaan idiin sheegaa buurtan ku cibro qaata Soomaaliyey. Ilaahay cudurka naga qaado, Ilaahay caafimaad hana siiyo, Ilaahay quluubteena ha dhex dhigo nabad, dalkeenana Ilaahay ha noo wanaajiyo. Wax yar ila dhegeysta. waxaa socota ducadii uu akhrinayo wadaadkan. Ducadaas oo ah qul wallah, faatixa, berbinaas, aayatul kursi iyo qaar kaloo badan. Marka ducadiina Ilaahay waa u ajiibi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waana fariintan hadday ku soo gaarto insha allah adna inta aad kartid gaarsii Ilaahay in Ilaahay dembigaaga dhaafo, annagana Ilaahay dembigeena dhaafo, anigana Ilaahay dembigeyga i dhaafo. Dhammaantiinaba waxaa idin leeyahay oo aan mar walba idiin sheegaa in Ilaahay agtiisa waxba uusan ka ahayn, inuu caafimaad ku siiyo, inuu lacag ku siiyo, in adiga wixii adiga aad tabanaysid dhan uu ku siiyo. ma garat Ilaahay mar walba waa la weydiistaa wixii adiga aad is leedahay oo qalbiga ku jiro, mar walbana waa la duceystaa. Marka walaalayaal, meeshan waxaa inooga muuqda oo aad arki doontaan biyo ka soo burqanaya buurtaas korkeeda. Biyahaas oo aad dhihi karin qof baa soo daadiyey ama meel baa laga soo furay. Ilaahay agtiisa waaye, asagaana soo furayo. waa kaas biyihii soo daateen aa u jeedid, way soo burqadeen. biyahan soo burqanaysa uma jeediin intaan ka badan, intaan kasii badan ay noqonaan mid in lagu qubaysto maahine biyaha qaadi karo, wara buuxin karo oo beero waraabin karo. buurtaas korkeeda waa taas. bala fiiriyo. subxaana allahi alcadiim. subxaanaka rabi alcizati camaa yasifuun, wasalaamu cala almursaliin, walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ya allah, ya allah, ya allah. bal fiiriy biyihii waa kaas soo da-ay. biyihii waa kuwan kasoo bixin buurta oo marka sii dambeysa soo badanaya oo xitaa loo dhiganayo baaldi, xitaa loo dhiganayo. waa kana wadaadkii oo akhrinayo faatixada oo dadka u sheegayo in Ilaahay in la baryo. allahu akbar. ilaahayow rabbiyo raxmaano, adaan wax walba ku weydiisanaynaa. ilaahayow adaan wax walba gacmaha kor u taagaynaa, adaan gacmaha kor kuugu taagaynaa. cid kale oo gacmaha kor u taagaynaa ma jirto. ilaahayow meeshaan ka umanaa naga waraabi. ilaahayow jaabkeena meeshuu ka banaan yahay buuxi. rabbiyo raxmaano, ilaahayow adigaa buuxin karee. ilaahayow wixii xun naga qabo, ilaahayow wixii fiican na sii. rabbiyo raxmaano, ummadda muslimka meel kasta ay joogaan, Soomaali ilaahayow u gargaar.